السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأنا بدعوة وديال كسو دوادا كانال Islamic Technology magacaygu waa Cabsalaan Abu Bakar waxaan kugu soo dhaweynayaa kooraska loo yaqaano Kaina Master oo aynu kasoo dhiganay 8 oo hore kan waa 10kii sagaalaad waana 10 gabagaba ah run ahaantii aan kusoo gabagabeynay application-kan iyo casharadii taxanaha aynu kusoo gabagabeynayno sida awgeed hal cashar oo kaliya ayaa inoo haray halka casharna waxaanu kaga hadli doonaa ciladaha dadka qabsada inta la isticmaalayo Kaina Master iyo waliba xalkooga ayaynu casharka dambe ku qaadan doonaa laakiin casharkan maanta insha Allah taala waxaan ku qaadan doonaa naqtiin ama waxaan ku qaadan doonaa revision ama muraajaco kulba sida aad taqaano casharadii hore ayaynu dib ugu yara noqon doonaa insha Allah taala marka application-kan Kaina Master loo yaqaano waxa lagu edit karayaa muuqaalada lagu habeeyo adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Android ama mobile-kaaga runtii Apple ama iPhone kulba sida aad taqaano ay ku xiran tahay sida awgeed insha Allah taala waxaan sameyn doonaa hadii ay bahawad lino ogolaado marka ugu horeysa sida caadada inoo ahayd halka inoo soo furi doonaa halka ay blasto ay ku qoran tahay bartanka kadibna waxaan dooran doonaa ratio-yinkan hore inoo soo sharaxnay asxaabteena ugu xidhan casharkii koowaad insha Allah taala soo daawan doontiin casharada dhamaantoodna waxay yaalaan comment-iga ugu horeeya sida awgeed ratio-yadan baynu furi doonaa insha Allah taala kadib markaynu furno waxay noo soo baxay runtii canvas-kan ayay noo soo baxay waxyaabahan oo dhan waynu wada sharaxnay hadda active maaha waxyaabahani laakiin si aynu u soo saarno halkan ayaynu ku dhufan doonaa waxaynu soo gelin doonaa muuqaal isla markii aan muuqaalkii kusoo darnay runtii oo muuqaal noocan aynu kusoo darnay waxay wada arkaysaa in meelihii oo dhan active dhamaantood ay wada yihiin sida ku muuqata sida awgeed halkan ayna active tahay wax kasta bayna active yihiin si fiican kuugu muuqdaan marka haddaynu wejigan hore sharaxno kan undo baa la yiraahdaa kan redo kan waa meesha laga share gareeyo ama laga export gareeyo kan screen-ka ayaa shoot screen laga qaadaa kan fade in iyo fade out ayaa lagu sameeyaa kan timeline-ka ayaa runtii lagu maamulaa kana waxa uu maamulaa split line-ka waxa loo yaqaan ayuu maamulaa dhamaantood waynu soo wada aragnay casharadii hore insha Allah taala daawan doonta halkan waxa laga soo dagaa effectiyada farta iyo waxyaabo kale oo fara badan halkan waa meesha laga balay garay ama laga daaro muuqaalka halkan cod ayaa laga duubaa halkan cod ayaa laga soo geliyaa halkan waxa laga soo geliyaa muuqaalada halkan waxa laga soo geliyaa layer fara badan ayaa ku jira sida awgeed waxa laga soo geliyaa muuqaalo iyo sawiraan kan kale waxa laga soo geliyaa effectiyo kan waxa laga soo geliyaa emojiyo kan oo kalena waxa laga soo geliyaa wax loo yaqaan text-ka sida awgeed kan waxa lagu sameeyaa handwriting hadda dhamaantiin insha Allah taala inaad fahanteen insha Allah taala waan rajeynayaa kana waa markaad project gabigiisa iskaga baxayso isla markaasna project kale aad soo furayso adigoo Kaina Master-ka aan xidhin dhamaantoodba insha Allah taala wada tasdiiqayn doontaa dhamaantoodna waynu soo sameynay sida rajeynay insha Allah taala sida awgeed muuqaalkan insha Allah taala waxaan ku sameyn doonaa halkan loogan soo dhigi doonaa halkan waxaan soo dhigi doonaa insha Allah taala wax loo yaqaano lower third sida awgeed waxaan ku dari doonaa halkan intro ayaynu ku soo dari doonaa sida awgeed area-dan waxa loo yaqaanaa timeline ayaa area-dan loo yaqaanaa area-dan waxa loo yaqaanaa canvas maanta muraajacun baynu wadnay sida awgeed codkan ayaynu wax ka jari doonaa qaabka wax loo edit karay hore noo soo aragnay sida awgeed ujeedkeenu waxa weeyaan waxoogaa yar muraajacaynayno sameeyno sida awgeed waxaan sameyn doonaa hadii la yiraahdo bal muuqaalkeenu daari doonaa halkan ayaynu ku dhufan doonaa sida marka ugu horeysa Sheekh Maxamuud waqtiga uu firaaqo helo wuxuu ugu jecel yahay inuu qabto wallahi horta waqtiga aan firaaqada helo waxaan ugu jecelahay inaan wardiyo inta badan okay muuqaalka ma daawanayno laakiin waxa weeyaan bal muuqaalkan horta marka ugu horeysa muuqaalka waa muuqaal la soo edit gareeyay kadibna waan la soo dagay sida awgeed wax editing oo fara badan ma baahna waxaan sameyn doonaa su'aasha wariyaha ayaynu jari doonaa marka ugu horeysa su'aasha ayaynu dhameystiran doonaa kadibna waan jari doonaa wuxuu ugu jecel yahay inuu qabto okay halkaas hadalkiisu ku jooga wariyaha kadibna waan istaajinaynaa kadibna split line halkuu ku jooga weeyaan kadibna waxaad sameynaysaa timeline-ka ama muuqaalka timeline-ka ku yaala aad jarayso ayaa taaban doontaa kadib markaan taabano hareeraha sida ku muuqata jaale ayuu ku noqday ama huruud kolba sida aad u taqaano kadibna halkan ayaad ku dhufan doontaa maqaska markaad saa ugu dhufato waxa ku soo bixi doona waxyaabo fara badan markaas qaabka wax lagu gooyo waynu aragnay tan waa markaad qaybta jarayso bidixda tan waa qaybta midigta aad jarayso tan markaad laba kala qaybinayso kana markaad muxuu haaye aad frame-ka aad runtii aad halkan ku freeze gareynayso hore inuu soo aragnay muuqaalkii koowaad ama muuqaalkii labaad insha Allah taala meelahaas ayaynu ku soo aragnay sida awgeed waan kala jaranaa split line-kan ku dhufanaynaa kadibna marka split beelkan ku kala dhufano kadibna qaybtan ayaa soo hadhay qaybtan insha Allah taala waan delete gareyn doonaa saasaan u taaban doonaa kadibna halkan delete baa iga soo bixi doona sida awgeed waan delete gareynayaa hadda sida awgeed bloon dhageysan doonaa wallahi horta waqtiga aan firaaqada helo waxaan okay markaas hadda wariyaha su'aashiisii waan jarnay sida awgeed qaabka wax loo jaro baynu aragnay waayo muraajacun baan ka wadnaa sida awgeed timeline-ka haddii uu kugu dheeraado adigoo farahaaga isticmaalaya ayaad sidan iyo sidan iskugu soo cadaadin kartaa timeline-ka imka haddaan saas oo yidhaahdo u fiirso
u fiirso timeline-ka uu gaabtay waqtiga muu gaaban laakiin timeline-ka ayaad maamuli kartaa waa maamulka timeline-ka lagu sameeyo imika saasaan u kala fogeynaya farahayga haddana saasaan u kala durkinaya marka marna saas baan farahayga usii kala jeedinayaa marna sidanaan iskugu soo cadaadinaya opposite-kooga sidaa awgeed taasna inaad fahanteen insha allahu tacala waan rajeynayaa horena waynu usoo sharxnay laakiin muraajicun baan ka wadaa waxaa kaloo insha allahu tacala aan samayn doonaa haddii eebaha wadal inoo ogolaado intaynaan introoga kusoo darin waxaan kusoo dari doonaa lower third halkana loogadii baan kusoo dari doonaa marka ugu horeysa ba loogada aan kusoo darnay halkan layer ay ku qoran tahay aan ku dhufano kadibna aan ku qoran halka ay ku dhufano halka media ay ku qoran tahay kadibna aan ku dhufano kadibna sida kuu muuqata runtii loogadii baan kusoo darnay sida kuu muuqata kadibna halkaas aan ku dhufan doonaa halka markaan ku dhufano kadibna loogadaynu dib u taaban doonaa kadibna waan yarayn doonaa kadibna halkaas baan soo dhigaynaa okay already na si fiican ii fahanteen insha allahu tacala waa rajeynayaa kadibna loogadu halka timeline-ka waa meel yaroo gaaban bay joogtaa sida awgeed waan dheeraynaynaa saasaan u taabanaynaa kadibna saasaan u jiidaynaa saa markaan u jiidno ilaa dhammaadkan gaarsiin doonaa insha allah sida awgeed taasna in insha allahu tacala fahantiin waan rajeynayaa beedamkii sidoo kale inaad practical samaysa markasta waa muhiim sida awgeed waxaan samayn doonaa haddii ilaahay idhaahdo waxaan soo gelin doonaa waxa loo yaqaano lower third halkana laga soo geliyaa halkana laga soo geliyaa ay ku qoran tahay layerka markaa ku dhufato kadibna halkan ku dhufan doontaa insha allahu tacala ay ku qoran tahay mediaha markaa ku dhufato kadibna lower third-kan aan kusoo darsan doonaa okay lower third-kan halkan aynu ku samaynay sida awgeed lower third-ka balkaas aynu ku dhufan doonaa marka ugu horeysa kadibna bal waan daawanaynaa lower third-ku waxa uu yahay wallahi horta waqtiga aan firaaqada helo waxaan ugu jeclay inaan wari okay lower third-ka kan horeyna usoo samaynay waa animation-ka ama qoraalka animation-ka lagu samaynayo sida awgeed waan taabanaynaa marka insha allahu tacala saas baan u taabanaynaa kadib markaan taabano halkan timeline-kan ka taabano insha allahu tacala waxaan samayn doonaa haddii eebaha wadal inoo ogolaado waxaan iska masixi doonaa kalarkan chroma key baynu isticmaali doonaa chroma keyga horey noo soo isticmaalay asxaabtii horey noogu soo xidhnayd sida awgeed halkaasaan ku dhufan doonaa chroma key ay ku qoran tahay kadibna halkan ayaan active ka dhigaya halkan ayaan ku dhufanaya insha allah halkan markaan enable idhaahdo automatically bay u masaxantay runtii kan hoosta waxaan gaarsiin doonaa ilaa iyo 37 ka kale waxaan gaarsiin doonaa insha allahu tacala ilaa iyo 57 insha allahu tacala ayaynu insha allahu tacala gaarsiin doonaa okay sida awgeed imika saas bay ku qurux badan tahay haddii aan daawano wallahi horta waqtiga aan firaaqada helo waxaan ugu jeclay inaan wardiyo inta okay waan daawanay kadibna waan taaban doonaa kadibna waxoogaa baan yaraynaynaa kadibna halkaas baan dhigaynaa meelahaas baan dhigaynaa robokeyga sida loo isticmaalo cid walba way fahmaysaa insha allahu tacala saan rajeynayo sida awgeed hore baynu u yara riixaynaa bal waxoogaa muuqaalka markaynu waxoogaa yara daawano ayay soo bixi doontaa animationka wallahi horta waqtiga aan firaaqada helo waxaan ugu jeclay inaan wardiyo inta badan aan tasbiixsado arrintaana waxaa aada igu dhaliyey maalin maalmaha ka mid a kitaab la yidhaahdo anoo kitaab caqiida akhriya oo diyaariya okay walow areadan ay kalarka guduudka ay leedahay inuu si fiican aanay kuugu muuqan laga yaabo inay si fiican kuugu muuqan laakiin lower third-ku waa waxyaabaha hoosta kasoo baxa isla markaasna kuu tilmaamo meesha aad ka helayso inay youtube tahay iyo inay facebook tahay iyo inay website tahay halkana inta badan lagu qoraa iyo inay tv yahay sidaa awgeed lower third-ku waa animationada hoosta ka dhaca sheegana meelaha laga heli karaa runtii sidaa awgeed inaad fahantay insha allahu tacala waan rajeynayaa beydamkii sidaynu ku balansanin kaliya waxay noo haray inaan soo gelino wax loo yaqaano haddii ilaaha idhaahdo intro marka intro si aan usoo gelino halkan aynu ku dhufan doonaa ay ku qoran tahay media oo halkan layer ku dhufan mayno layerka waxa weeyaan markaad halkan sii duldhigaysa mid kale introguna waa markaad rabto waxaad ka horreysiiso ama muuqaal kale oo aad sii daba dhigta markaad rabto sida awgeed waxaasay ku kala duwan yihiin halkaas insha allahu tacala ku dhufan doontaa sida awgeed waxaynu kusoo darnay runtii intro baynu kusoo darnay ama hordhac hordhaceen black buu ahaa si fiican adiga imika inaan kugu muuqan waa laga yaabaa sidoo kale timeline-ka inuu si fiican uga muuqan waa laga yaabaa haddii laakiin aan taabto si fiican buu uga muuqanaya timeline-ka sida kuu muuqata sida awgeed bal hanbelay garayna marka ugu horeysa okay waxaan u baahanahay runtii si ay isku soo dhex galaan in transition aan u sameeyno sida awgeed timeline-ka soo dhaweysanaya zoom baan saaranaya sasan u kala fogeysanaya kadibna halkan transition-kii baa inooga soo baxay transition icon-kaasi kadibna waan taabanaynaa weliba transition icon-ka ayaan taabanaynaa ama kaabartanka waa kaas inuu si fiican kugu muuqdo insha allahu tacala waan rajeynayaa kadibna transition-ka noocyo ka mid ah tusaale ahaan iska raadsanayaa kite classic transition ay ku qoran tahay weliba kaas ayaan insha allahu tacala ka dhigan doonaa kaa haddii ay baqadaro kaas markaan ku dhufto kadibna tigsa u tigareeyo kadibna qaabka isku soo dhexgalayaan u fiirso
والله horta waqtiga aan firaaqada okay sidaa awgeed hadda muuqaalka waan u edit karaynay sidoo kale waxaan dib idin xusuusiyay qaabka loo isticmaalo chroma key qaabka loo isticmaalo logooyinka iyo qaababka loogu soo darsado iyo dhammaan waxyaabahan wejiga kaaga muuqda dhammaantood dib baynu u xusnay sababta aynu u xusnayna waxa weeye inaan dib ardayda ugu muraajaceeyo bacdama aan gabagabeynayo koorskan loo yaqaano KineMasterka sidaa awgeed ugu dambeyn waxaan samayn doonaa optionka qaabka loo daabaco ama loo export gareeyo ama loo share gareeyo sidaa awgeed halkan ayaad ku dhufan doontaa insha Allah taala shareka kadibna marka halka ku dhufato kadibna quality ayaa dooran doonta adigoo labada line markasta laba dhaxadooda keeni doona quality aad ugu tala gashay sida awgeed anigu quality ga tusaale ahaan waxaan dooranayaa ka 360 ka iyo waliba frame rate kana kan oo kale ka dhiganaya halkaas sare sida kaaga muuqata frame rate kana kaas ayaan ka dhiganayaa 24 ka ama 26 ka baan ku deysan karaa 26 iyo 30 ayaa ugu wacan sida awgeed halka resolution ay ku qoran tahayna waa halkan resolution-ka halkaas sarana waxa ku qoran frame rate hadda si fiican u arkayso ugu dambeyn marka daawacayso halkan ayaad ku dhufan doontaa halka waxa ka arki doontaa markasta inta MB uu noqonayo halka imika 14 MB buu halka ku soo qoraya hadda si fiican u arkayso sida awgeed haddii aad rabto inaad export garayso halkan aad ku dhufan doontaa insha Allah saad u export garayn doontaa kadibna hadda waa uu daabacaya muddo kadib waa uu daabici doonaa waxaana uu keeni doonaa gallery-ga sida awgeed waxaan rajeynayaa inaad si fiican insha Allah taala aad u fahanteen dhamaantiin insha Allah taala wixii problem ee ka hor yimid ama cilada ka hortimid inta isticmaalisa KineMaster commentiga ugu horeeya ayaad igula wadaagi doontaa sababtoo ah waxaan rabaa casharka ku xiga inaan soo geliyo anoo ka hadlaya waxyaabaha runaantii dadka ka hor yimaada dhibaatooyinka ama problemka ama ciladaha ka hor yimaada inta isticmaalayaan KineMaster waxaan rajeynayaa in dhamaantiin aad si fiican aad fahantay tan intaan ku kulmi doono casharkan oo kala lamid ah waa bahda Islamic Technology. Assalamu alaykum.